barakacsanaa marka hadda ugu yaraan 3 milyan oo qof yaa abaarta barakacyaal gudaha dalkeena ku ah oo dad Soomaaliyeed ah Soomaaliya marka waxa la yiraahdaa waa wadanka ugu horeeya adduunka markii laga hadlayo IDP dadka gudaha ku soo barakacay dalkooda 3 milyan ayaa ugu yaraan hadda barakacyaal dalka gudihiisa ku ah saa la socotiin ku dhawaad 1 milyan qaxooti waayo dalka dariskiisa wali jiraan oo Yemen iyo Ethiopia iyo Kenya ay jiraan 2 milyan ku dhawaad 3 milyan wax ku dhow waxa lagu qiyaasaa inay diaspora yihiin qaxooti si kale ah marka waxa la dhihi karaa Soomaali majority-geeda waa ama IDP ama waa refugee labadaas ay u qaybsan yihiin 32 degmo ayaa sida halka ka aragtaana ugu daran degmooyinka ay saameysay abaarta deegaanada halkaas ay ku qoran yihiin ilaa awdal ay jirtaa waa u jeedaan waxa uga duwan tahay Baydhabo oo iyo Baay Bakool waxa soo dhan way ka duwan yihiin 67% dhibaatada ugu weyn ee saameynta xaggeeda ay jirtaa sababtoo ah cunaqabataynta ay ku hayaan kooxaha argagixisada yaa ka xoog badan deegaanada kale deegaanana abaarta saameysay deegaanana abaartiya saameysay argagixisadina waxay ku haysaa culays dheeraad ay ku haysaa marka Baydhabo hadda waxay noqotay epic center-ka ama xarunta ugu daran ay noqotay waxa yeelayna waxa way ma aha xajmiga saameynta abaarta ma aha dadka ku soo qaxaya ayaa ugu badan Baydhabo oo imaad oo ka soo qaxaya meelihii argagixisada ay haysatay oo loo diiday inay gargaarka access u helaan 11 gobol ayaa boqolkiiba 50 way deegaankeena sida hadda alla socotaa markii la yiraahdo 11 gobol Soomaaliya almost boqolkiiba 50 ku dhawaad waaye hadaysan wax dheereenba inta hadda ay abaarta saameysay slide-ka labaad ma gudbi kartaa madaxweynaha runtii markii xilkan uu eegmaday oo ergey gaarka inaan noqdo xukuumadda ma dhisnay dawladana ma jirin waxaana ka horeeyay hal sano iyo bar ugu yaraan oo isjiid siyaasadeed ah oo doorashadii ah taasoo Soomaaliya la waayay cid la macaamilo dawlad ahaan wax la macaamilo adduunka xataa noo soo gurma laha challenges-ka adduunka ka jira waa sheegi doona laakiin cid la macaamilo xilligaas ma jiro oo dalku wuxuu ku jiray xilli transition aad u adag marka dawlad mandate haysata lama haynin oo la macaamilo saa ogtiina wax kasto deeqa way istaageen ama macaawina ahaadaan ama horumar ahaadaan way istaageen waa la istaajiyay madaxweynaha marka magacaabitaanka uu sameeyay howlaha uu istaagnay waa 4taas howlood oo ah qareemida oo advocacy waxaan la yiraahdo oo ah in wacyigelinta kor loo qaado oo sare loo qaado oo dadka la gaarsiiyo abaarta iyo xajmigeeda inta uu leeg yahay resource mobilization-ka oo deeq dheeraada in la raadiyo markii xafiiska oo la magacaabay boqolkiiba 18 oo ahay humanitarian response-ga ama dadka deeqda laga jawaabay boqolkiiba 18 kaliya ay ahayd coordination waxa ugu muhiimsan ah oo challenge-ga ugu weyn ah in la wada shaqeeyo oo dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka ministries-koodii wasiiradoodii iyo xafiisyadooda inay wada shaqeeyaan asna challenge-ga ugu weyn ayuu ahaa runtii haystay iyo talasiin qaran oo ku aadan waxaan maxay u soo noqdaan abaarta awal 10 sano mar ay jirtay hadda waxay noqotay 4 sano mar saaday ku sii socotana 2 sano mar ay u gudbi doontaa maxaa sababa abaaraha marka abaaraha waxa sababa 3 qodob ugu waaweyn isbedelka cimilada oo ah waxa keena ugu daran oo duufaanada iyo dabaylaha iyo abaaraha iyo waxa dhan oo haystay fatahaadaha waxay ka yimaadaan isbedelka cimilada oo adduunka hadda waa aragteen saameynta isbedelka cimilada oo ku yeeshay Yurub ayaa maanta waxa ka qeylinaysa kulayl keena isbedelka cimilada ay keentay China ka qeylinaysa Mareykanka ka qeylinaya waa la socotiin midda labaadna waxa way colaadaha joogtada ah oo soo noqnoqday qaasatan kuwa argagixisada ay sababayaan ayadana waxay qayb ka yihiin abaaraha soo oo dadkii beerihii ma beeran karaan xoolihii ma dhaqan karaan fursadihii mujtamaceena boqolkiiba 70 beeraley xoolo ah fursadaas ma heli karaan midda saddexaadna waxa way jaritaanka dhirta annaga aan jarno waaye oo ugu yaraan Soomaaliya waxa la 10 sano la soo dhaafay 10 milyan oo geed aan jarnay saddexdaas buu waxay keenayaan marka in dhulkiina saxaro oo noqdo dadkiina ay ku noolaa waayaan qareemida annaga markii aan u istaagnay runtii waxa isku daynay inaan horta meelaha dhibaatada ka jirta aan soo booqano oo dadka marka wax la wadaagaysid xog ma aha theory ma aha waa in adiga wixii practical u soo aragtaa oo meelihii fieldiyada aad tagtaa dadka dhibaataysan ay ku noolaayeen labo in dadkii wacyigelin media campaign la qaado oo weli hooseeya meeshii la rabay ma gaarsiisana dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda in la wacyigeliyo dalka inay abaar ka jirto sababtoo ah
doorashooyinkii iyo siyaasaddii la isku haystay waxay keentay in la iloobay dadka inay dhibaato ay ku jiraan marka waxaan kaloo ballan qaadnay hay-adaha gargaarka in loo fududeeyo gargaarka in la gaarsiiyo dalka dabcan gargaarka hadda waa isbedelay sidii hore ma aha saa la socotay 70% ama 80 ku dhawaad dadka hadda waxa lagu gaarsiiyaa cash lacagaha EFC-ga loogu diraa hay-adaha ugu diraan inta soo hartayna raashinka gudaha ka iibiyaan oo dawladaha hadda Sacuudiga ama Qatar ama dawladahaas la midka ah ayaa waxa jira waxay keenaan raashin hay-adooda NGO-yada ay gudaha ka iibiyaan ayagana waxa iska dhihi doona imaaraadka dawladda yiraahdaa Bakiriya hadda wax soo far raashin keenay ka jiro oo kuntan ah kuntan markii la lacageeyeen waa $300,000 lacag badan ma aha wax badan xajmigaas ma badna because tankii $300,000-400 ku fadhiya marka waxa ay keeneen nafteeda waa lacag $300,000-400 wax u dhigma maxaa loo diiday sababtoo ah hadii la qiimeeyo raashinkaas la keenay la yiraahdo logistic dadka la gaarsiiyo ugu yaraan markii ugu yaraato minimum laga soo qaado $700,000 ku baxaysa in raashinkaas halka kuna tana dadka la gaarsiiyo hadii diyaarad la yiraahdana $1 milyan ku baxaysa marka dadka hay'adaha humanitarian ka shaqeeya mar hore fahmeen access-ka iyo dhibaatadiisa iyo logistic-kada way ka leexdaan marka raashinka oo waxay aadeen dhinaca dadkii in cash wax loo siiyo waxa keenayna waxa waaye nimanka shabaab oo dhulka xoogiisa haysta oo canshuur dheeraad markaan doolo tagay oo field trip-yada kamid ah intaga waxay ugu dhaheen raashinka ka yimaada xamar waxa ka raqiisan raashinka ka yimaada berbera doolo raashinka ugu yimaada berbera ayaa ka raqiisan raashinka xamar ugu yimaada waxaasna waxa keenaya waxa waaye road blog-yada jidadka yaala canshuuraha waxa dheer nimankan argixisada waliba runtii ayaga canshuurtooda ugu yar argixisada tooda ugu yar mid kale oo dawladda ama member stateska ay qaadayaan ama isbaarooyinka sida kale loo qaadayaa badan marka raashinka imaada daas waxa deerta meesha waxa raadinaysaa uga faa'iideysto waxa xiran xuduudda Kenya waa xirantahay saas daraadeed gobolka Gedo oo dhan caawinaada waxay uga timaadaa hadeertaan gargaarka bini'aadanka berber uga yimaada oo soo dhaxmara Ethiopia iyadoo Mombasa ay u dhowdahay oo la furi karo xadkaas xiran marka maadaama anaga Kenya aan jaadkii had loo furay waa inay furaan xadka si humanitarianka dadka loo soo gaarsiiyo dhowr jeer arintaas aan ku celcelinay waxaan rajaynayaa wasiirka arrimaha dibadda shaqadiisa ugu horeyso ee wasaaraddiisa inay noqoto sidii loo furi lahaa ra'iisul wasaare borderkaas oo dadka humanitarianka loo furi lahaa mid dalbaad waxa waa resource mobilization-ka oo ah in maaragtay la raadiyo dhaqaale runtii marka imaanaysaan sheegnay 180 oo ahaa humanitarian response wax la yiraahdo jiro dadkan humanitarian ka shaqeeya UN-ka iyo hay'adaha la midka ah balaan ay sameeyaan qorshe dejiyaan ee humanitarian-ka looga jawaabayo 1.4 bilyan oo lacagtii ay raadiyeen ra'iisul wasaarihii ka horeeyay ra'iisul wasaare ayaa tagay Geneva balan qaada la sameeyay laakiin lama realize garaynin markii la soo noqday anaga aan qaadanay dadkii hadda way soo jawaabeen Soomaaliya hadda waxa la yiraahdaa humanitarian response wadanka ugu horeeya waay wadamo badan oo crisis-ka humanitarian-ka uu ka jira maxaana la ku siiyay marka waxaana la ku siiyay dabcan madaxweynaha la arkay inuu mudnaan siinayo arintan magacaabis erga gaar mar oo magacaabay ayadoo wali golay wasiirada la magacaabin dadka waxay tustay inuu serious ka yahay arintan field trip-ki asaga uu sameeyay Baydhabo iyo kaamkii uu ka hadlay waxay soo jeedisay inuu ogaa iyo taas lagu kabay inuu serious yahay waxa kaloo dheer coordination-ka waxa fiicnaa coordination-ka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka ka dhaxeeya kaasna aad u fiicnaa oo wada shaqeyntaas way fiicnaad oo aad ay muhiim u tahay markii lagu taageerayo inaa wada shaqeynaysiin muhiim ay ahayd iyo raadinta aan raadinay iyo Soomaaliya oo markaas dawladeeda ay cusub tahay oo mudnaan la siinayo oo cusubka dawladda dabcan waxa la yiraahdaa waa garanaysaa fursada la siiyaa inta badan waxa kaloo marka dhibaato naga haysta oo challenge-ga jira adduunka hadda wuxuu ka soo kacay COVID-19 wuxuu ku jiraa saa ogtiin crisis-ka Ukraine uu ku jira oo waxay tahay inflation jirida sicir barar jiro waxaas oo dhan markii waxay keenayaan in Soomaaliya indhaha laga laabto ayada nafteeda waa challenge-ka dhinaca kale fursadaha waa sheegay challenge dhinaca kale waxa waaye waxa adag marka in adduunka lagu qanciyo Soomaaliya in la taageero aad ayadan ay u adag tahay haddii ay sii gudubto coordination-ka ra'iisul wasaare aad u muhiim u yahay oo ka dhaxeeya dawladda dhexdeeda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada markasta oo anaga aan wada soconno markasta oo codkeena midaysan yahay markasta oo wada shaqeynayno markasta oo sahlayno humanitarian access-ka oo ay kamid tahay canshuurta in laga dhaafo gargaarka bini'aadanka
in clearance-ga markay wax u yimaadaan loo fududeeyo in meelaha intii tabarteena aan la gaarsiin karno access-ka aan u sahli karno annagoo isticmaalayna ama qabaaisha ama private sector-ka ganacsiga gaarka loo leeyahay ama nimanka naftooda la canaaranayo media laga sameeynayo strategy lagu hadlayo dadka deeqaha oo fasaxa la yiraahdo intaas oo dhan waxay keenaysaa in oo coordination-kii xoojinaysa laakiin markii aan kala soconno oon kala hadalno oon isburino oo waa garanaysaa dee competency-ga waa la isku dagaalaa golo wasiiraha tihiin waa garanaysaan dowlad anaga dastuurkeena qabyo waayo weli mandate-ka dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka waa la is wada haystaa taasi kaga sheekay maayo qof walba ayadaa meesheedu waxay ka tahay deeq iyo libaax wasaarad kasta iyo line minister kasta asagaa ah deeq iyo libaax qof kasta marka haddaanan la coordinate gareynin effort-ka oonan humility la muujinin allen dadkeena dhibaataysan annagana waa baryootameena waxaan haysano hadda xataa dad dakhli haysto wax bixinaya haddaan nahay waxba nagama bixin laakiin dad tuugtamayaana marka coordination-ka waa muhiim talasiinta waxaan isleenahay in aan ku dhinac wadno in madaxda qaranka tala laga siiyo say looga bixi karaa abaarahan soo noqnoqday ilaan waa ceeb inaan sanad walba 4 sano soo istaagno oo dhahno 2011kii ahayd markuu Erdogan yimid saa la socotaan oo adduunku qeyl dhaaminaya 2017kii ahayd dowladdii hore markay cusbeed shirkii ugu horeeyay qabad shirka abaaraha ahaa dowladdan 4 sano ka bacdi abaarihii la hadana wali taagan marka see looga bixi karaa waxaan oo uga bixi karnaa ayada nafteeda waa arrin muhiim ah hadda hore u socoto qofkii slide-ka hayo waxyaalaha noo qabsoomay in dowladda midnimadeeda iyo wadajirkeeda waa muhiim oo noo ahaa inaan baraarujinta xoogaa wacyiga kor u qaadnay sidii la rabay ma aha mana dhowo waliba dadka Soomaaliyeed wali ma ku baraarugsana xajmiga abaarta intuu la egyahay inta dhibaataysan kaliya og laakiin inta public-ga ah waliba ma oga marka waxay u baahan tahay wacyigelintaas in aad sare loogu qaado dabcan resource u baahan tahay limitation-kan haysto kamid yahay in resource lagu sameeyo howlahaas aanan la haynin intii tabartan u baan ku dhaqaaqayni dabcan saro u kacay World Bank-ga waa 18 oo ahaa awal 79 oo hadda jooga humanitarian response-ga World Bank-ga intaas uu soo kordhiya arkaysaan oo ah inuu fududeeyay miisaaniyadii gargaarka degdega ah waa maasiin dadkii nagala shaqeeyay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta intaba aad u mahadsan yihiin haddana waxay soo wadaan ilaa lacag intaas la eg 48 milyan oo ay ku kordhin rabaan iyo 50 milyan oo loogu talagalay abaaraha in looga jawaabo canshuur dhaafka iyo waxa aan fududeynta aan sameynay ee nagala shaqeeyeen xafiiska wasaaraha waa mahadsan yihiin wasaaradda maaliyadda waxay soo jeedisay indhaha adduunka in أول وحول عاجل 27 بري وقاعد جري عن شرافك 27 بري حكومتي هره إن مركب تاجن دون تاجن عن شر رافع لاتي تدو بري قاعد جرت لكن هذا يرتان فوت إلى ورسي قاعدتها وأكون ماسين حفيز كرئيس وزراء وزارة المالية أنت بقى هرجلينتا قيلينتا جرمتك يو طبعا هي هذا اللي سميه ومضح بنان أما هوستك وزارة أرمها جودها وحارنا وحي قيبين أيدي إنه حل صارناته أنا شغالة عن شيء نوكله أن كانوا هروسه عقبتها والشيء تراسيش كانوا نقول هذا عقبته وها دق بحياش دونر فتيق عقبته هاد أوران وشيء دقال حمودة كدالتي أرماس كوفيد 19 كيوكرين سعر بركة وعقبته كله مسيوين كله أدون كتاجن أفغانستان يمن تجريج وعقبت كله كلا دالانتا كلا dantaalnaanta iyo coordination yarida dhexdeena ka jirta waa caqabad in la xaliyo u baahan oo si serious looga hadlo culayska amni xumada iyo isbaaraha goob kasta yaala oo ka sheekay hadeertan oo daaqdi hadii la qaadaba maxaa cuslaynaya daaqdi in meel gaar la gaarsiiyo waa isbaarooyinkii waxa cuslaynaya iyo jidgooyinka yaala loolanka oo mandate-ka competency-ga oo ama federaalka ama dowlad goboleedyada ama line ministries-ka la is wada haysto waa challenge asaga naftiisa siyaasadda istiraatiijiyada iyo qaab dhismeedka hay'adaha dawladda ka shaqeeya abaaraha aan tayeysnayn hay'adaheena wali ma tayeysna haraqaadkooda waa cusub yahay hay'ad kastaana saan sheegay competency ku dagaalamaysa iyo mandate tayo sare oo hadeertaan uga jawaabtay howlihii ma laha oo in la tayeeyo ayaga naftooda ay u baahan yihiin haddaan soo jeediyo talooyin waa coordination in la sameeyo oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada lana xoojiyo waliba waxay u baahan tahay waliba senior level oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrintaas inay involved ahaadaan sababtoo ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waa garanaysaan waa madaxweynayaal dowlad goboleed
in lala yimaado istaraatiijiyad muujinaysa baaxadda abaaraha isla markaan la soo bandhiga fursadaha waxaan lagaa yeelaynin waa gaajeysnahay abaarta kaliya iga caawi taas waa laga daalay waxay u baahan tahay inaan narrative-keena bedelno oo la nimaadno dhahno abaarahana haysata waa dhibanahay na naloo gargaaro laakiin haddii naloo gargaaro waxaanan haysanaa oo fursado ah hadda markaan wareegayay khaliijka oon carabaha u tagayay daba carabaha problemka weyn oo hadda haysta waa food security-ga ama amniga qidaa'iga wax la yidhaahdo dhib weyn ku haya adduunka markii hore covid-19-ka wuxuu banaanka soo dhigay in food security-ga uu halis yahay sababtoo ah waxaa xirmay isku socodkii iyo xiray covid-19-ka adduunka hadda markii dagaalka Ukraine dhacay labada dawladood ugu weyn oo qamadii laga soo dhoofiyay ay ahaayeen Ruushka iyo Ukraine waxay sababtay in cunno yaradii adduunka ay xoogaysato hadda saa la socotaan dawladda Soomaaliya ama madaxweynaha xafiiskiisa wuxuu ku mashquulsan yahay in Turkiga ay noo ogolaato burka inaan soo dhoofsano wala socotiina u maleynaya dabcan Hindiyana bariiska inaan soo dhoofsano Hindiya safiirka Hindiya aniga waxaan ka baryayay in loo ogolaado bariiska inaan soo dhoofsano sababtoo dawladdu baraashinkeedu waa xirataa deerta oo raashin aan la arki doonin maraan dheereen dawladaha arkaysaan min Sri Lanka ilaa iyo Sierra Leone ka socdo banaanbaxyada ay ka socdaan raashin xumada ay ka jirto waan ugu soo socotaa anaga nafteena haddii raashin la soo dhoofsado lama hayo raashinkii waa la wada xirtay adduunka qof walba ayadaa raashinkeedii xiratay taas marka maxay keenaysaa marka food security-ga in annaga aan fursadda muujino dhahno war annaga xoolo la dhaqdana waa haynaa beerana waa haynaa kalluumaysina waa haynaa renewable energy aan haynaa fursadaan haynaa bulsho 70% dhalinyaro haynaa 3 milyan kamid ah diaspora ay tahay waxaa la yiri markii la isku daro Uganda iyo Tanzania iyo Ethiopia iyo Kenya ardaydeedu wax ka barata Ingiriiska iyo Soomaalida badan Ingiriiska kaliya fursadaasaan haysanaa dad aqoon-yahan oo tayalo wax baran kara laakiin caqabadahan hortaagan argagixisaan hortaagan amaan daraan hortaagan haddii aan nala fududeysaan caqabadahan fursadaan abuuri karnaa oo idinkana food security-giina dabooleysa qaasatan dawladaha khaliijka hadda waxay rabaan Islamic bankiga iyo khaliijka intay isku tagaan bankiga islaamka horumarinta islaamka 10 bilyan bankiga keeno 10 bilyan dawladaha khaliijka ay keenaan 20 bilyan lagu invest gareeyo food security sababtoo ah halis ay dareemeen in ayagoo lacag haysta ay gaajo u dhima karaan naftooda maadaama cunto aysan haysanin annagana waxaan haysanaa opportunity-gii cuntada annaga iyo Suudaan iyo dalalka gaajada haysato dhibaataysan waxaan haysanaa fursadihii maalgashiga lagu sameey lahaa ama mashaariicda horumarinta laga sameey lahaa si loo daboolo baahida food security ee ka jirta gobolkan ama khaliijka ama carabta gaar ahaan annaga fursadaas haysan laakiin waxay u baahan tahay sida aan ku gadi lahayn iyo istiraatiijiyadii aan ku gadi lahayn u baahan tahay waxa kale oo ayadana jira isbedelka cimilada annaga waxaan nahay dalka ugu yar ka qayb qaatay isbedelka cimilada at the same time waxaan nahay dalka ugu badan ee ku dhacayso dhibaatada isbedelka cimilada wax allaale iyo wixii lacag iyo fan loogu talagalay in lagu kabo dadka ay saameysay isbedelka cimilada dawladaha ay saameeyeen Soomaaliya shilinka ma hesho waxay uga heli weysana maxaa waaye waa ku maasanta ra'iisul wasaare in la dhisay wasaaradii isbedelka cimilada inaan markii hore wasaarad jirin markii hore cid u taagan jirin waxay u baahan tahay marka technical expertise iyo khibrado aad u fara badan oo lacagtaas lagu heli karo u baahan tahay waa la socotaa Mareykanka John Kerry in la qaabilsan isbedelka cimilada adduunka dhan hadda heertaan wuxuu u jeedaa isbedelka cimilada oo dadkii madaxda ahaa jira ama wasiirada arrimaha dibadda ama ra'iisul ayaa hadda u soo wada taagan arrinta isbedelka cimilada in laga shaqeeyo annaga marka fankan wuxuu yaalaa South Korea maamulkiisana wuxuu yaalaa Germany oo UNCCC wax la yiraahdo maamulo seen ku heli karnaa waqtigay qaadanaysaa oo wax degdeg ma aha laakiin haddaan helno technicalkii expertise-kii iyo khibradii iyo compliance-ga iyo protocols-kii iyo negotiation-ka haddaan ka soo baxno waxaan heli karnaa lacago badan oo lagu kabi karo dhibaatada isbedelka cimilada oo geedo aan ku abuuri karno ceelo lagu qodi karo fosterka waxaan la yiraahdo xoolaha la siiyo calafka lagu abuuri karo lagu sameey karo biyo xireenada lagu sameey karo adduunka ku leenahay sababtoo ah dhibaatada ayaga ay sababeen annagana saameysa dawladaha oo hormaray ayaga sabab pollution-ka ugu badan oo isbedelka cimilada annagana victim aan nahay ayaga markii waxay qaraameen lacag meel iska dhigeen dadka victim-ka in la caawiyo oo dhibaatada ay gaartay seen ku heli karnaa waxay noo baahan tahay inaan capacity-gi competence-gi aan la nimaadno waxaan ku soo gabagabeynayaa mudan ra'iisul wasaare xaaladda dalka oo maray aaday ay u dhib badan tahay
adduunkana challenge-yada ka jira aad u weyn yihiin ma aha inaan u qaadano for granted mar haddii adduunkaa soo gurmanayo adduun soo gurmanayo meeshaan hadda hertaan oo badan ma jiro adduunka mashaakil kala u yaallo annaga marka saa u wada shaqayno iyo xiriirkeenna iyo narrative-ka aan bandhigayno iyo saan wax usoo gudbinayno iyo baahideenna saa isugu aadan tahay adduunkii hadda hertaan wuxuu noqday adduun competitive challengeskiisa badan yihiin culaysyadiisa badan yihiin marka waxaana laga rabaa rakarooni iyo dheeraad awooda inaan isugu geyno inaan dadkeena dhibaataysan aan caawino abaartan waxay la mid tahay tii waxaa lagu qiyaasaa 2011 taasna saa ogtihiin 280 kun oo qof ku dhimatay iyadoo wali Turkiga soo gurmaday adduunka soo gurmaday ogtihiin 280 kun oo Soomaaliya ku dhimatay marka haday tii la mid tahay gurmadkeena kiyo kale oo san ahayn dhimashada intay tahay waa qiyaasi kartaan marka hool inaan dhamaantii u wada istaagno oo isku wada xilqaano ay intii la shaqeysana waxa ugu mahad celinaya xilligaas aan ku jiray inta kale waxaan rajaynayaa inaan wada shaqeyn smooth aan sii yeelano waa maasantiin. Assalaamu calaykum.